السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan idilkiin ba saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waa kuma taliyaha cusub ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA National Intelligence and Security Agency mudane gaashaan la dhexe iyo sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. Halkani waa aqoonsi TV, aniguna waa Mustafa Xaaji Aadan Haaruun. haddii aad ka mid tahay saaxiibadeen waad mahadsantahay. haddii aanad hore noogu soo biirina ka mid noqo kumanka kun ee saaxiib ee halkan aanu degal wadaagta ku nahay. wax badan ka ogow taariikhda sarkaalka oo iminka ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo u igmaday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. waa sarkaalka kaliya ee gaari taliyaha guud marka laga tago Allah u naxariistay sareeye guud ama gaashaan la dhexe marxuun Maxamed Cali Samatar ku xigeenkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee dawladii kacaanka Maxamed Siyaad Barre. taliyaha cusub ayaa ka soo shaqeeyay booliska Soomaaliyeed laga soo bilaabo 1975 ilaa 1991 markii ay burburtay dawladii militariga ee kacaanka ee uu hogaaminayay xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed iyo Maxamed Siyaad Barre. inta loo yahay sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe waxa uu tiraba 2 jeer noqday taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed. hore ma uga soo shaqeeyay ma uu qabtay xilka sirdoonka khibradse ma u leeyahay? dad badan ayaa su'aashaasi isweydiinaya. jawaabtu waa haa. waxa uu ahaa sareeye guud Bashiir Goobe taliyihii hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA National Intelligence and Security Agency sanadii 2013 ilaa 2014 oo uu hagayay hay'adaasi sirdoonka qaranka. inta aan xilka agaasimaha NISA loo magacaabin waxa uu hayay agaasimaha guud ee wakaaladda dhismaha iyo horumarinta Soomaaliyeed. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre haatan ah tartame madaxweyne ayaa xilkaasi u igmaday sanadii 2019 sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac gaashaan la dhexe Bashiir Goobe. waa siyaasi ka hor waxa uu ahaa intii agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ka hor intii uu san noqonin wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta arrimaha bulshada ee Soomaaliyeed. bilowgii bishii 8aad sanadii 2012 waxa uu bilaabay in uu noqdo xildhibaan golaha shacabka ama aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilligii uu hogaaminayay Professor Maxamed Cismaan Jawaari. bishii 5aad ee May 2013 Bashiir waxaa loo magacaabay agaasimaha cusub ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka. bishii 7aad ama Luulyo 2014 kadib markii lagu sameeyay dib u habayn xagga amniga ah, Bashiir Goobe waxaa loo bedelay taliyaha sirdoonka iyadoo xilkii hay'adda loo dhiibay Cabdilaahi Maxamed Cali. sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Goobe waa sarkaal iyo siyaasi aad u afgaaban oo si wanaagsan u guta shaqada loo igmado oo aan lahayn dabciga ay ku aanbixeen saraakiil fara badan oo iyagu madaxda hoos carara. taasi waxa ay ku muujinaysaa deganaantiisa aqooneed iyo sida labada dhinac ee haatan ku loolamaya gacan sareynta siyaasadeed ee filla Soomaaliya dhan waliba haddii uu xilka NISA qabto aan iyaga dhibaato ugu ahayn. Bashiir Goobe waxa uu fahamsan yahay in ciidanka qalabka sida iyo kuwa sirdoonkuba ay ka madax banaan yihiin isjiidka siyaasadeed kaliyana waajibaadkoodu yahay gudashada amniga qaranka. mar aan la kulmay anigoo Mustafa Xaaji Aadan Haaruuni Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe gaashaan la dhexe dalkani Jarmalka waxaan u arkay in uu yahay qof ay jecel badani kaga jirto sidii dalka Soomaaliya uu dib ugu soo kaban lahaa. halkani waa aqoonsi TV, aniguna waa Mustafa Xaaji Aadan Haaruun. haddii aad ka mid tahay saaxiibadeen waad mahadsantahay. haddii aanad hore uga mid ahayna ka mid noqo kumanka kun ee saaxiib ee bartan aanu degal wadaagta ku nahay. mahadsanid. kulanti dambe fi amaan Allah.